gogosha nabadeed oo ku wada hadlayeen ehel walaalo oo ka soo kala jeeda degmooyinka Xiraale iyo Caabud Waaqi maanta lagu qabtay deegaan u dhow deegaanka Libaax Seexay ee ka tirsan gobolkan Galgaduud ee waqooyiga gobolkan Galgaduud. gogoshan ayaa si gaar ah waxa isku arkay odayaasha dhinacyada iyagoo halkan looga falanqeynayay inta badan xaajooyinka iyo dhinacyada dhexmaraya sidii looga gaari lahaa xal kama dambaysa. مسؤولين كثير سنة مع مولد الدجموين كعبود واقعي حر على هجامين قدومياش الدجموين كان لعناها أمن الدجموين كان ويكمديهن سراكيش السلجية الدجموين كان يصيدوا كله ثالث كقيبته قبل كالجدود بوليس كي سراكيل كله وعيدا يحملوا خري دولة جولات الجلم دجوح صارت حلقة بلهن أي جوشان كسوق الجلي ولا هذا اليضاد لأن كذب وحال كان كهالي مسؤولين كثير سنة مع مولد الدجموين كحر على يعبد واقعي جوسوت شدي بعض يفرموه كأدن حال كان نبضين تأهل كان ولا لها المدة أود حيسي حيسد علادات إن دين عيض وحيابه أي كلا تبنيين أي كوضع هذلان بالرواء إن نبض السيد عدعيه وحال الرواء ضدكي يضلن يردي يحافظيه يملي ولا وذا دجنايو ولا وذا جارسيو نبكي دعي شري كي هرد عين إن لقوا هذا كان دعي دوانا سيد لقيه إلى إن قوما كينه لعله سيد لو وجهيه أو كهرتك لو سمين لها أيضا إن لقوا هذا الرواء شركنا waxa noo aan rabnaa ku wada hadlaan waa labada beelood oo meeshan isugu timid maanta ayagoo mahadsan meesha Xiraale ka timid iyo meesha Caabud ka timid iyo tuulooyinka u dhow intaba in wada hadalkaas sida u socdo wixii ka dambeeyana insha Allah taala khayr ay noqoto ummadana la kala gaarsiyo walaalayaal anagoo idin ka mid ah oo idin ka dhalanay oo idin la dhalanay maanta waxaan codsanaynaa cid walba waxba lagu karaameeyaa inaad nagu karaamaysanayaan noo heshiisaan annaga abaabulayaasha inaan ajr helno ehelkanaguna maslaxad iyo amni iyo nabadgelyo iyo isdhaxmar iyo nolol iyo wada ganacsi ay helaan ayaana deeqda ninkii raba qabiilkiisa dadku waa qabiil jecel yahay qabiilkiisa ninkii jecel qabiilkaaga nabadda wax taraysa dawladnimada ninkii jecel ayada lagu kifaxaaye nabadgelyada wax tarayso maanta laba qofkii heshiisiyaa diinkana waxbuu taray dawladnimada iyo dalkana waxbuu taray walaalayaal anagu shirka waxa iska odayaasha waxa iska qabiilka hadalka iyo iftitaaxiisa iyo furudiisa iyo inaan rag shirka soo aawilnay inaan kalmada ku yeelnay hadalka iyo qurxintiisa iyo waxa la rabo iyo sida loo marahayo dadka geedka fadhin jiray oo garta kala goosan jiray oo isaqaano iswaji buuxiyaan hadda arkayo markii halkan laga soo galay nimankan awooyaashana ay soo galeen dadka oo dhan waa dhaceen waa soo dhukeen waa la isdhex galay dad dirsan ama wax ka dhaxeeyaan uma ekayn waxa rabaa inaa ka dhabaysaan aad hirgelisaan insha Allah frontigii hadda ishayay oo ridda hore isku ag fadhiyay baan anagu ka bilownay wada hadalka kan kalena waa u gudbahaya oo wax la diidan yahay ama laga tagay ma aha marka waxaan leeyahay soo dhawaada nabadda ku ad inta nabad ku heli kartaan culaad kuma heleysaan nabadda intaan saan leeyahay gogosha nabadeed ayaana la filayaa in laga soo saaro xal kama dambaysa oo heshiis ku gaariyaan ehelkan walaalaha ay ka soo kala jeeda degmooyinka Xiraale iyo Caabud Waaqi waa Saciid Gooday warka TV-ga Universal waqooyiga gobolka Galgaduud